وعرب saddexdan waxyaaloodne gurigaada ku dhagso gaarigaadana ku dhagso meel kasto ay ka soo horbaxaysane saddexdan kalimaad markasta ku qoro naftaadana mar walba tusi si aad adduunyadan uga gudubto ta koobaad waxa weeyaan adduunkan inta aad joogto tacab marna ka badbaadi maysid إلهي باياري خلق الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أدون كان وحلقة أبو روضنا قبد أدون كان وحلقة أبو ري تعب كو مركز علوش وهيدا كجرته تعب بدريميسا يضيق يمشي كجرته مرة كصوب بحثنا واحد مكاسي تعب كدريميسا صاد ناس كي وشقيل هيد كدبنا وحا وين ممكن لقى قوري تعب يقول مركي قولين كدبات كبحثنا كعاكف كي مركز علمها يا بيبي قال هيد كدبنا اسكول كي يا معلم كي كدبنا الرير كي يا حاس كي يا نرشي اسميسا تعب يضيق كدبنا متقانا عرورتي شيء فكر كودي ولا الكودي كدبنا وايل المدي كدبنا عيال كد اوغو نقطي الا اساكو دمته adduunku dhan baa tacab ah waxaasoo dhan waanad wanaagu aragtaa ood la jahan qaataa waa ta koobaad weeyaan adduunku meel raaxa ma aha raaxadu jannay taallaa waa ta koobaad raaxa kaamil ah alxayaatu kulluhaa xayaato oo dhanba jannay taallaa jannay kaaga horraysaa bilaa mashaqa bilaa tacab bilaa murugo bilaa ham bilaa qami kulligood jannay kaaga horreeyaan adduunkana waa kabi khoshi kabi qam marna waa murug marna waa farxad walkay qaaliga baaraka allah fiik ta labaad waxa weeyaan waa dadka intaad adduunyada ku nooshahay dadku inay ku xagxagtaan wax lagaa sheego lagugu mashquulo lagu ilaysto lagu cayuumo lagaa daba shaqeeyo lagu dhibo lagugu taagsado lagu naco lagu xidho lagu dilo lagu asaasin gareeyo oo lagu ikhtiyaalo marna kama suulaysid xaqdiga iyo qilliga dadka kaaga imanayna marna kama badbaadaysid salaamatu nnaas dadka in aad ka badbaado haddaad doonayso jannada aad ilaahay subxaanahu watacaala shayga ugu weyn oo uu ku galladayanayo oo nicmada ugu sheeganayo ahlu jannada waxa weeyaan markay saa u galaan ilaah wuxuu yidhi wanazacnaa maa fii suduurihim min ghillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin waxaan qulubtooda ka siibnay oon ka saarnay oon ka tirtirnay ka dilid garaynay waxyaalihii khilliga ah waa ahlu jannada jannada markay saa u galaan waxa ugu horreeya qulubtooda loo kelin garaynaya laga nidfinay waxa weeyaan in aysan dhexdo xiqdi iyo xumaan aysan dhexmarin jannada ayay taallaa laakiin adduunka inta aad joogto walow haddaad qool yar isku soo xidho dadku afkooda iyo adinkooda ka badbaadi maysid ku sabir oo ku talagal inaad la noolataa iyada ah ta saddexaad waxa weeyaan ka badbaadi maysid almawt dhimasho walow kuntum fii buruujin mushayada والله إن أن لقبت بادين ملك الموت أدونك أنت أجوكتو ملك الموت كبد باد ميزد لا محالة منها مع المها كمن نفته هل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق هل راح أنت لقى مرة أخرياي كعلياي ويكدعي ولقي ما شهادة أقبتاي أرورياي كفناي قاضاي آساي مرحومك مع المها كمذا أدونك أنت أجوكتو ويكد عيسى إذن هدي مركة آذن نقولك بدبادينين هدي آذن نمشيك بدبادينين وحالقا الربا إن آذن هذا بسيطا سميسو كو تدك إنا تصبرتو وارنتي سلامة الناس إذي أمد حالة دودي اللبا إن أدويذن أتكشاقيستو أدويذن أتكشاقيستو ونشاقيستو oo markaasi camalka aad samaynayso uusan kaa noqon adduunyo bese aakhira imaa bacda almowt tacabka aad marayso aad ugu diyaar garowdo markii dhimashada kuu timaadane adigoo ilaahay subxaana watacaala raalli kaa yahay aad liisi diyaar garoobay sunnooyin fara badan iyo qur-aan fara badan iyo dikri fara badan iyo sadaqa fara badan iyo biri fara badan iyo ixsaan fara badan iyo dacwo fara badan iyo akhlaaq fara badan ay kaa horreeyaan in aad dunida ka tagto baaraka allah fiik asalaamu calaykum waraxmat ullah